تلك عيسى ويني وادي السلام يا ميل كستا الدنيا جوكتان جريت نيشن دلك قديسة هي الدبديسة قبل كيني سلل الكي أنو كسو تشينا دمانتين به جيروسلم تاينوهين ورانو الشيغي لما سنو صدح سنو دور تدبان شيغينا إناقا عيسى سيلع أي جيروسلم لم إنوطاي مقدس إنوطاي صدح سنو هرتيد باشيغ قبل كيني دباتا كتاغن بوق فربادن با كجيرا إناقا يوددكي إنالا دقنا وانا سيسانا لكن سلادة وودا تكرين وحنا وودا عبيني وانا كوودا نورين مصيبة waxay dhacday markii la noo soo diray dhagaxii masiibada xambaarsanaa odagii masiibada sitay dhagaxii la nagu soo tuuray maalintuu yimiday ayay masiibadu noo bilaabatay iyo dagaalka iyo isxamashadu maalintaas ay bilaabantay uu noo yimiday dhagaxii la nagu soo tuuray beesha ciise iyo galbeedkaba waxaan jeedaa gobolka sare dhagax baa la nagu soo tuuray dhagaxa waxa soo tuuray qoladii buurta gacan libaax baa soo tuurtay qoladii baa soo tuurtay maciro madaxda waa isaguna waa dulmane waa victim wuxuu u yahay ciro maamulka beenaalaha ee Hargeysa ka jira ee madaxweynaha ugu beenaalaha yahay hadduu seexdo beenaale subaxii isagoo beenaalaha unbu soo toosaya odagaa weyn inta leeg ee beenta ku waramaya ee dadka beenta u sheegaya ayaa dhagaxna nagu soo tuuray dhagax masiibo ayaa la nagu soo tuuray dhagaxana lama qabsaday ninkii soo tuuray ayaa dhagaxa lala xisaabtama hadduu wax ka jabiyo amba dhibaato ku keeno dhagaxii dhibaato inoo keeno markuu dhagaxaas inoo imanayay waa la soo dhaweeyay waxa laga soo dhaweeyay meesha la yiraahdo gargaara loghaya gaarisa aashacado sayla maalintii ku xigtana isaga iyo weysaqaadiyadii uu watay weysaqaadkii uu watay kuwii adoonta ay la socday dharka u siday xoolaha loo qalay hilib baa loo qalay way dhargeen way qadeeyeen sidii dadka sharaf leh baa loo casumay subaxii ku xigana way nagu soo kala qaadeen dhagaxii baa dadwada nagu soo kala qaaday oo leerkii ma baxaya waaba iska dhaqan jiray waxani wax ku cusub ma haddaad wanaajiso way ku xumaynayaan wada waan ognahay nagu dangu intaan naqaan cid kale ma taqaano dadkii dagaalkii la galay ee sanad baan hawaan garanayna وأركض وناجسو دوحي كيمين دوات غرانيسان فتا هدي لا ميدو او لا ميدو او لا ميدو وحي كيمين يوم با كيماناي ولي نظيف ما نقطو ونو عاصو dadkii meesha wada deganaa waa la isku diray waxay isku lahaayeen dilama dhageysan karay waan dhageysanay laakiin wax bili aadanku aqbali karo oo nolosha quruxda badan leh kamida ma ahayn anu waxaan bartay nolosha sida qurux badan tahay political science wax la dhaawaan bartay culum wa siyaas noloshu sida kuma qurux badna wahalkii ugu liidatay halkii joogan imika dadka saylac ku nool halka ugu liidata ayay joogan maanta nolosha oo nolol jirta maaha waxa ay ku hadlayaan iyo sida ay u dhaqmayaan iyo dunidu markay meesha ay marayso markaan eego madaxay xanuun halkaan waan ku dhashaaro baabuurkaadu tahay wuxuu ku sheegay 3 kiiloomitir horteed ka horeeya ina wax ka dhaceen ina buuq ka jiro in baabuur rogmaday isaga ku sheegay baabuurkaadu wato ayaa ku sheegay halkaas ay dunidu maraysaa iyagana waa aragtay waxay sameeyeen wixii halka ka dhacay wadoogeeda markii la soo dhaweynayay wadoogeeda sida wax u dhaceen maalintuu baxayay markuu dadkii madaxa isku wada diray ay salaadii ku kala tageen ay sharaftii ku kala tageen ay karaamadii ku kala tageen ay wanaagii ku kala tageen ay isqaawusayaan ay isxamanayaan ayuu ka tagay markuu baxayna sanka laga haystay sanka bili aadanka ka maqli jiray sanka laga qabsay isagoo nool baa sanka laga qabsay dead body walking ninkaas reerka isagu yahay ma taro habarawal waxba oran mayno laakiin reerkii garxaajis la oran jiray ee buurtii gacan libaax dadka ku laayay ee jabhada kursiga ku fuulay ayuu matalaya oo isaga laftiisu dhibana u yahay waa nagu soo noqday dhagaxii haddana isagoo laba jibaaran xanuunkii ku ka badan sita ayuu yimid xalay waxa la ii soo sheegay odayaal ciise in la soo ururiyay markaasaa la kala saaray kuwa abinka iyo kuwii weyda ahaa يعني كوه مساكين تاع اللي تريدكها يكوه حون فهمية ولا كلا صاري كوه فهمية حالي باور لو قادوا المسافري القاري ولا قيلا شعدو كوه كلا ميل لو سحري او فديه
jaad iyo buuri baa la siinaya halkaasay fadhiyaan marka wixii dhaha la yidhaahdo bay leeyihiin afkoodii baa laga kireystay waxay ku leeyihiin nabad baan ku jirnaayo nabadan iyo nimcadaan ku jirno iyo sidaas quruxdayada iyo waa la yaabaya ciisaha kale waxay naga galine ciise waxay ka hadlayaan way khalkhaleen qadiyadii laga hadlaayay ma garanayaan waxa halkan loo jooga ma garanayaan waxaan la isku haysta garan maayaan sharaf iyo karaamad male dadkoodu doonitaankoodii kama hadlayaan buurigaa yar iyo jaaladkaa garaabada la siiyey bay ku hadlayaan afkooda ayay ku hadlayaan wayna bahdileen waa kuwii weyda ahaa waxa meesha ku hadhay malooli baa la yidhaa xataa xoolaha way ku jiraan noocaasoo maydhana waxaanse la yaabana iyaga maaha cabdi siciid baa meesha sawirka iga muuqda cabdi siciidow carabtu waxay tidhahdaa janna bidulli walaa cadaab alikhtiyaar jannadoo dulli ku gasho waxaa kuu dhaanta adoo cadaabta iska u gala madax adigoo sii aada waxaa kuu dhaamo dulliga ku jira adoo iskaga taga soomaaliduna way ka maamaado waxay tidhaahdaa haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa marbay dhaqashii iyo kaa yihiin dherigu xaaraan dhashaaday sugtaa xaajadaad dowrataa abid wixii maanta aad qaadataan halka odayaashaas ay qaataan ala ka tidhaahda weligii waydin sugayaan waydin hor yaalla odaygiibaad halkaa hor fadhidaan masiibadii ummadda loo soo diray tolkaana waxay leeyihiin waad maqlaysaa nabad baan ku jirnaayo nabad baan ku joognaayo nabad bay ka sheekeynayaan nabaddu labada dhanba maaha nabaddu waxaa muu jeedaa dhan qura ma aha waa labada dhanba magaaladaad joogtaan waa la isxamanaya nabad baa jirta halkaa aad joogtaan magaalada aad joogtaan meel idiin jirta 1500 oo mitir amba kilomitir iyo badh abtiyaashay baa ku shiray gadabuursi baa ku shiray nin karimoodkoodii cuqaashoodii wadaadadoodii shuyuukhdoodii dhallinyaradoodii aqoon-yahankoogii dumarkoogii halkaas iskugu tegeen sheekh ibraahim sayle iyagoo ijaare iyo taysa iyo tulli iyo jufa uurreer iyo jufa uurre iyo jufa mixidheer ka yimidda iyo baashii la odhan jiray dila xataa way ka yimaadeen iyo boon iyo qulujeed lafaciisay ka yimaadeen halkaasay ku shireen idinkayna idiin shirayeen waxayna soo saareen in dhiigga ciise uu xalaal u yahay iyaga ood xoolatiin oo laydin gowrici karo waxay soo saareen in carruurtoodna inay dilaane xalaalta waxay soo saareen in nin kasta oo gada buursiya ay xaq u tahay inuu nin ciise aad dilo wararkay taalla nabaddaad sheegaysaan wejigiin gubay nabaddus waa laba dhan maaha dhan quro dadku way heshiiyaan laakiin laba dhan baa lagu heshiiya nabaddan halkaad la soo fadhiisataan ee odagan masiibada ah ee hargeysa ka yimid ee idiin sheegay maxay tahay been baad sheegteen shalay baawuur laga leeyahay meel la yidhaahdo madax dadley la yidhaahdo laga leeyahay waa reer kulmaan malama reergeed ayaa boorman laga helay intay soo qabteen ebdarool la soo ibsadeen bay baashiina soo qaateen tii laytarkii wax lagu gubayo oo dhahaan baawurkan ciisaa leh waan gubaynaa baawurta kalena gubeen ciisaad ku aragtaan magaalada booram iyadoo kun baabuur idin dhex marayaan nabaddaad ka hadlaysaan maxay tahay marka adigu nabaddu soo heshiis maaha waa social contract waa dowladnimada wax lagu heshiiyo nabadduna waa wax lagu heshiiyo nabadduna waa labada dhanba anigu istile malihi laakiin waxaanad ka hadlaysaan baan waxba ka jirin nabadnaad sheegaysaan wax jira maaha ninkii ku gowracayay cadowga kula ahaa jaarkaagu yahay ee dhiigga ciise waa noo xalaal soo jaarkaaga halkan agtiina ma joogaan soo olo aroodaweel ma joogaan cid ka xaal tiri war waxaan way qaldameen nimankaasi maxay tiri baa jirta waa lagu wada raacsan yahay social media haddaad dhegaysata waa lagu raacsan yahay waa in laydin goobo waa sax bay ku odhanaya in laydin ilaayo waa sax saas ku odhanaya haddaad dadka averageka eegto 80% way ku raacsan yihiin in dhiiggiinu xalaal yahay in dilkiinu xalaal yahay in carruurtiina inay dilaan xalaal tahay maxaad ku haysataan somalilantaad sheegayseen waa dadka ugu liita ee ugu darxumaysan een waxba ku haysan een shaqo wax laga siin een wax dhakhtar lahayn een iskuul dowladdu idiin dhisin een ceel idiin samayn wax alla wax ay idiin qabteen wixii bini aadanku baysiska u baahnaa idinma qaban iyaguna wadooyin bay dhisanayaan annagaa dhisnay iskuullada dhakhtarada annagaa dhisnay maxaad somaliland ku tahay marka idan social contract way jabiyeen oo iyagaa qaatay wixii heshiiskii iyagaa wada noqday dowladdii
markaas waliba kuwaan jabayaan ka waran waxa saajira wufuud baa ka timid imika waxay ka dacwoonayeen in la dhageysanay oo taladoodu soconayn oo naciisa una maqlay oo qoorsanayaan qoorsi bay ka dacwoonayaan oo dawladoodu la maqlay waxa ka dacwoonayaan marka cadaalad jirtaa la ismaqlaa marka aad gaadheen inaad tilaahdaan dhulka iyaga kuma ciyaari kartaan cadaaladda naga sugaysaan maxay tahay wanaagga naga sugaysaan maxay tahay wanaag haddaan idin fallowan ognahay xumaan baa noo imanaysa wixii naga imanaya idinka waa inaad xumaysaan heerkii ugu dambaysay baad nala gaadheen oo ah jiritaanka iyagii inaanaan jirin annagu dad jira ahayn maxay tahay qoorsigaad ka hadlaysaan annagu dowlad baan nahay annagu waxaan idin aragnaa Hirshabeello kale adigu dowlad baa isku aragtaa bahalka daayeerka la yidhaahdo hooyadu ilmaheeda waxay u aragtaa inuu libax yahay laakiin waa daayeer hadduu dhintana way isdataa maca lafaha ilaa lafuhu kala daadanayaan oo qurmayo way isdataa annagu waxaan ku aragnaa Hirshabeelle inaanad ahayn oo iyadu waa state la aqoonsan yahay laakiin adiga ciidan la cid ku aqoonsan ma jirto seenta markaa ku maqal anaga isbaadilla seensan heshiis ku galayna annagu markay dadku isku awood yihiin bay heshiiyaan oo heshiis la galaa isku ciidan ma nihin isku technique ma nihin isku diyaarada ma nihin ciidankayga ku baabacayn baan samayn karaynaa meeshan aad ku jirtaan sakano gudahood baan idinku dubin karnaa seconds maaha saacad nusaac maaha minute maaha sakano aan ku baabayn karnaa aflagaadaa noo dheer weliba intaas waadna caayaysan habee dheer waadna caayaysan abtiyana sidoo kale abtiya xabadda ma hayo xabad uhrida ma hayo haddana habeena dharaar ciisaan dilaynaa waan idin dili jirna xoolaha idinka qaadna ugaaskii nimaan dile oon gubnay gabadha soo qortay ugaaskii ciisaha waa la dilay gadabursaa dilay markaas weliba la gooyey markii la dilay saasay qorayaan abtiyo waxaasay ku hadlayaan waa afku xooglayaal qori ma haystaan waxa ma hayaan oo sacaboole maalin bay jabhad noqdeen oo subaxii markay baxeen galabta soo noqdeen iyagoo 3 qori sita waxaan ku wada hadlaynaa anigu ma garanayo dhaliin xagga iyaga oo baan anigu garanaya inay dhaliin tahay anaga xagga iyaga oo waxaan dhaceen haddaan anagu talada qayb ka nahay waxay doonayso waxay doonayso dhacaan janna badul wala cadaab al-ikhtiyar farti la nagu soo fiiqaba 5 farood baan fiiqi lahay laakiin dadka mas'uulka ee talada haya ayaa deganaanshaha dadka ku hogaaminaya aad baan idin salaamaya tolka ciise weyne iyo Soomaali meel kasta oo dunida joogtaanba waxaanu hadlaynaa waa xaqayga waxaanu hadlaynaa anagu cidna waxba ka dooni mayno waxaanu hadlayo ciidan waxa kaga doonayaa ma jirto salaada subaxii baan kacaa hurdadu iyo aayadoo igu dhagan on doonayo waa dhaxan waliba baraf way maanta meel walba xidhan waxaan ku fikiraa hurdadu inay ila tagto waan ka baqaa waxaan u baqayaa inaan salaada tukado waa waajib ay igu tahay sidaas kale waajib igu tahay inaan tolkay u hadlo oo qadiyadooda ka hadlo oo qadiyadooda af Soomaali ku difaaco oo qadiyadooda aqli ku difaaco oo aqoon ku difaaco oo garaad ku difaaco oo garasho ku difaaco waajib ay igu tahay waa waajib faralkaas oo kale igu tahay arin cid alla cid oo amranay ma jirto cidna ma aflagaadeeyo reerahan ka difaaci ma aflagaadeeyo xaaskaygu waa isaaq hooyaday waa samaroon islaanta caruurteeda samaroon baa dhalay aabahay bay dhalay ma aflagaadeyn karo wax aflagaada iga dhici mayso laakiin logic baan ku hadlayaa aqoon baan ku hadlayaa cilmi baan ku hadlayaa wixii gar ilaahay bay taqaanay gar alla taqaanay gar baan ku hadlayaa wax qarada oo iga dhaca ma jeceli afkayga inuu ka soo baxana ma jeceli inkastoo abtiyaashay dumar bay iga dhigaan islaam bay iga dhigaan dameer bay iga dhigaan wax walba iga dhigaan I don't care waxaas aniga waayo anigii waa soo qaymiday oo public figure iska dhigay marka wax walba way imanayaan aad baan idin salaamaya Soomaali iyo tolkay ciise weyne great nation guul baan idin rajaynaya